أنا كهلا يا أفكار بديجا قرن أو ديار جروجا يكهر تجا حرون كورونا فيروس سيدا نهراء ولس عسيني بالشرع وحنو ولا نهاي كل ما تشوفتها أو معلومة الباقي ساعد والبانو كقطع شرع إنه لقول له فقره لقولنا السعودية سبدل كحنون كدنيا ده سبدل كحنون كجوال iyo arrimaha la xiriira sidii loogu hortagi lahaa iyo loogu wacyigelin lahaa bulshada dalkeena jumhuriyadda Soomaaliland hadda waxaanu ka soo baxnay shirkii sideedaad halkan waxaanu doonaa bulshada inaanu la wadaagno go'aamadii ka soo baxay kulamada guddida heer qaran oo diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen xogaha iyo xaaladihii uu dambeeyay ee la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus ee halayla dunida isla markaana ay darseen hawlaha loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka waxa ay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan kow ugu horeyn waxa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada labo guddidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Cigaal International Airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 casho ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu karantiinaynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 casho ah ee la haynayo saddex waxa la xidhay dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya Djibouti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo waxa kaliya oo ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka daawooyinka iyo agabka kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah waxa la xidhay qodobka afraad waxa la xidhay dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka shidaalka daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3 2020 6 maqribnimo marka la gaaro shan mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda waxa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay'adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan hay'adaha iyo wasaaradaha waxa ka mid ah kow shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka labo shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda saddex shaqaalaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka afar shaqaalaha madaarka Cigaal International Airport shan shaqaalaha dekedda Berbera lix shaqaalaha wadada Ceelgaabo Burco toddobo shaqaalaha bangiyada Soomaaliland sideed shaqaalaha dawladaha hoose ee dalka qodobka u dambeeya lixaad hay'adaha dawladda ee u xil saaran fulinta go'aanada loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh